eegaba dareen baa igu kordhaye come on baby kiss me daraamaan ku hayayo nolosha koowaad ka tahaye come on baby kiss me markaan kaafiyow ku eegaba dareen baa igu kordhaye come on baby kiss me waxaa garabkayga taagan fartuun axmed sahal fartuun birimo waa fanaanad Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho noogu timid kulli marti waay aniga ma dhahay waa gabar Soomaaliyeed oo magaaladeedii caasimadda joogta waxay noo sheegtay inay safar ku soo kala bixisay gobollo kamid ah dalka waxa ay rabtaa inay habeenka bisha koowaad sanadka cusub wayana fanka ka maqnaay wixii waa kala iloobay inay fan ama show ama happy new year ay magaalada Muqdisho ku dhigto gaar ahaan hoolka aan hadda dhex taaganahay Carmel waxaan rabnaa in dhammaan shacabka reer Muqdisho u sheegno in habeenkaas uu yahay habeenkii Fartuun Birimo qofka ciyaar waxaad ku taqaaneen habeenkii Fartuun Birimo iyo fanaaniinta Muqdisho iyo dhalinyarada TikTok ee reer Muqdisho dhammaan baraha bulshada habeenkaas adinka iskale Fartuun Birimo waxa ku taqaaneen heeso macaan iyo qofka ciyaar macaan weli Fartuun waa Fartuuntii taqaaneen habeenkaas waxa meeshaas taabagelinaya oo arintaas ka soo shaqeeyay roor response gareeyay Carmel Hotel ku yaala number 4 oo haddana aan dhex joogno marka waxaan idin leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed habeenkaas waa habeenkii Fartuun Birimo iyo fanaaniinta Muqdisho iyo dhalinyarada baraha bulshada caanka ka ah oo caawa waliba Fartuun waa taariikh fanaan saas la isugu yimid oo dhalinyaradaas isugu timid adiga ka horma dhicin taariikh cusub oo ku diiwaan gashay waay kooda bisha noo dhigaysa show xaqiiqatan aniga ahaan waxay xasuustaa Allah u naxariistay Xaliimo Khaliif Magool Xaliimo Khaliif jannada Allah geliya Magoolka nool waaye habeenkaas dadka Muqdisho waxaan u sheegayaa qofka gurigiisa jooga yaan lagaaga sheekeyn hal wada yimaado waan soo dhaweynaynaa aadaan u faraxsanahay waana noo furayaa wassalaamu calaykum warahmatullahi horta waan faraxsanahay inaan ag taaganahay maan garab taaganahay fanaanadeeda Fartuun Birimo weli horta nasiib uma yeelan waagi aan yaraarto showga qaba jirtay haddana nasiib u yeeshtay waana ku faraxsanahay weli waxaan rajayaha showgaas qurux badan oo dhici doono sanadka cusub dhibo bisha koowaad waxaan leenahay habeenkaas habeen qurux badan waaye waxaan rajayaynaa inaan soo wada qayb gali doono waxaan ka dhici doonaa Carmel waliba holkaan aan dhex joogno barafara waxaan leeyahay habeenkaas yaa lagaaga sheekan si hor loo dhaho waa salaama السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلامة دمان أصحابتا فنانتنا فرتون بريمو هذين واقع سلامة سودو ودن قاضي قبيك سودو إن وحديار وهاي إننا كخيب قلوب بنديكا شو قاعدة سودني كودا بيشا سنة عصب أو جيسا مركو حاليا دليل مقالة متشكو عن كفنانين تكو ميديا وحروا يعني كسو قيب قلان شو قاعدة إكل كعيان ما دام فنانتنا أو إن بدن سوي إيش سوي عندنا جوكتو سوكا سودو قاعد فرق سودو فنانتنا فرتون بريمو aad ugu faraxsana inaan garabkeeda ka soo muuqdo fanaanadii aan baadiyano arag ku ilaalin niclaha aan heesada ka daawo jiray marka xalay soo dhaw magaalada waa magaaladaadii waxa waaye qofka ciyaar wacan qofka ciyaar maqlaayay dhamaan qofal meeludo maamuus iyo sharaf ka salaame fanaanadina eedan taageero hortan fanaanada kaliya ana taageero horta umaaday meel la istiraag midna diro fiidiyoyada kayda ay heestiya maalne يسترق عن قدره شو كي أنا إذا هم طوعنا فنان الدبي بدنا شرف إكرامه شو قاسنا ما يبدي سنة صب صدني كودا بشو دعايا قفل بقى هرت رجع فرق البيت شو قاس سيله فهمت فنان ده شو قاس ونلا قفل بقى قيب قال قر فنان ده ما يلا قوله يسيب كوي جوجر مقالة كوي جوجر كده عادي aad baan ugu faraxsanahay caawi inaan ka soo qayb galo soo dhaweyntii iyo showga qabanqaabadii walaashay Fartuun Birimo dhammaan asxaabta ka soo qayb gashana waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin waa idin mahad celinaynaa kolley waa 31 sanadka cusub qof kasta qofkii ka soo qayb galaa nasiib leh intaanu maaragtay fanaaniina iyo intaanu bulshada baraha bulshada caanka ah qofkii habeenka inta soo dhex istaago waqti uu ku arka helay run ahaantii waa qof nasiib badan waxaan leeyahay ka soo qayb gal wanaagsan aad baad u mahadsantihiin Fartuun Birimo
محمد داوود وير هذا وسط كان محمد داوود وير caawa waxaa halka u taagannahay gabadha walaasheen Fartuun Brimo waxaan dhihi karaa maamadii fanka waa Fartuun hadalka ma ku dheeraanayo Maxamed Daawud Cali Masxafa Soomaali weyn habeenka Fartuun New Yearka 31 bishaan qofkii habeenka show ka maqnaada Soomaali ma ah gabadha waa u wada taagannahay Soomaali hal loo istaago habeenkeeda showga hala soo camiro wabillahi tawfiiq wa hadii salaamaya shacabka waxa leeyahay hoolkan intuu qaadi waayo banaanka isku imaano waa habeenkii Fartuun Brimo ma jiro maanta Fartuun Brimo fanaanad lala simayo oo annaga halkaan ugu soo booqatay walaal war miyaa la wadayaa hala kala kiciyada meeshaas waa habeenka 31 bishaan sanadka cusub waxaan leeyahay hoolkaan oo balana waa mahadsantiin caawa way ka duwan tahay habeenadii hore waxaa joogta boqoradii fanka Soomaaliyeed aynu wada naqaanay haday tahay codka iyo haday tahay qaab maslaxeedka waxa kale oo Muqdisho jooga oo caawa ka soo qayb galay waligeed aan dhicin tiktobarada waliba kuwii libaaxyada ahaa bal caawa yimid wax loo kala haray ma jirto waxa la yiri libaax baa yimaada dacwana u tagta marka waxa weeye libaaxyada tiktobaradii ayaa caawa yimid waxaan ku leenahay Fartuun soo dhawow magaaladu waa magaaladaadii aad caawa u faraxsanahay waxaan idin leeyahay sanad wanaagsan hadda way sii hormarna horta caawa waxaan ku farxay ciyaar tiktok aan ku dhahay madax gal dhiigay u kariyaan caawada wow laakiin wallahi billahi la'aantooda waa abaar tiktokarada dhan la'aantooda waa abaar waxa ayaga wadina ma soconaayo marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan idin leeyahay tikidada waxaa ka helaysiin Shaadiye Sharaf Xamdi Bilal ayaan wadani ayaan bulbulo iyo ugu fuaad iyo hotelka ka helaysiin ogaanina hana ka maqnaanina fanaaniinta kala naga maqanay saacada u saamixi weyday marka waa badan yihiin fanaaniinta aad iyo aad aan u mahadsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta marka ugu horeysa xoogay mikrofoonku hadalkiisa waa leegu qurxoon yahay laakiin waxaan iska raadinaynin oo isoo riixaya baan sheegaya caawa horta caawa waxaan aad iyo aad aan u faraxsanahay in wixii magaalada social media adduunyada taariikh aan ka dhicin inay halkan caawa ka dhacday waxaan kala garan waayay inay showgii tahay inay keliya daafurkii showga oo shaacinta oo midiyaha inay taan kala kaswaya caawa maasha allah tabaarakallah waxaan u arkaa taariikh lama huraan ah inaan caawi aan hantiyey waxaan u arkaa wax aan adduunka ka dhicinin oon horey loo arag hal waa la arkayay maxaa la yidhaha tiktoker magaalada flyer xayeysiiya ama wax sheega laakiin caawa ayagoo live ah ayaa kii ugu yaraa hadduu wiil yahay iyo tii ugu yaraa hadday gabar tahay iyo tii ugu weyneed hadduu wiil yahay iyo hadday gabar taaba aan horta caawa miligteeda ka arkay waxaan kaloo miligteeda ka arkay kaamiraystayaal aan kala dhicin nuuc qaar ayagoo kaamirada wada ay meesha ii fadhiyaan caawa waxaan dareemay jacayl aad iyo aad iyo aad u fara badan wallaahi wabillahi watallahi haddaan saan xataa fanka ugu baxa waan ku qabaa caawa caawa haddii fanka aan saan ku soo xiro xitaa waan ku qaba jacaylka lii qabo in all media إلا وقت بوقت وحدة هبلها عصبنا عاشقة جعل وهي عصبنا عالم كجعل أبا وحبان لتشاف قادنا حتى كان كانوا حويه ذاتك ميديها جارهان تيك توك هذا إن عاول ميدك تداول التاجين كي أن إيماننا وشو ويجي حيسين يوم أو ظاهر على السوق وجوي هاي وعن كارك ميديا ما أنت آدي أنا وفرح سنة وعن كلام كفرح سنة هاي فنانين الصوماليين أنت تلك كم قرن أنت تلك جوكتا عاوي وقتها نو سامح وقار ولي جدي كسو جيران قارنا وانا لا جوغان ayagana kii ugu yara iyo kii ugu weynaan in ayaguna ay garabkayga yihiin inta aan la hadlana hadal wanaagsan ay ugu hadleen oo wali mid hadalkayga wax yar oo aan dhibsado indhaha aan ka waayay oo fanaanka ugu yar iyo fanaanka ugu weyn ay soo wada dhaweeyeen waxaan u arkaa fankayga inaa heer ka gaaray asagana haddaan caawinka ku joojiyo aad ayaan u faraxsanahay waxaan kaloo halkaan uga mahad celinayaa walaalahayga hoolka iska leh
hoolkan karameel oo si fiican barnaamijkayga u isboosaray oo caawa ii ogolaaday inaan halkaas xayeysiinteeda ku sameeyo ii imaadaan dadkayga social mediaha iyo fanaaniintayda oo garab igu sii oo weliba casho iyo soo dhaweyn wax walba isku kaayata habeenka showga 31 bisha ay tahayna igu isboosaray oo igu soo dhaweeyay gacmo furan ayagana waxaan leeyahay taariikhda idin qoraysan walaalayaal aad iyo aad baan u mahadsantihiin waxaan kaleetoon aad halkaan uga mahad celinayaa maasha allah tabaaraka allah walaashay Maryan Qani oo ahayd gabadhii barnaamijkan oo dhan ka dambaysay oo hoolka soo qabatay oo ilaa maanta garabkayga taagan ilaa uu showgu ka dhammaanay oo abaalkeed halka ku soo gudub karin waxaan kaleetoon caawa aan halkan aad ugu faraxsanahay in madaxda Soomaaliyeed kulli ballamo qurux badan ay iga wada qaadeen haddii la yiraahdo booliska ciidanka walaalkay Asad Diyaano oo habeenkaas iga ballan qaaday in barnaamijkayga si qurux badan u dhici doono iyo kan ugu hooseeyba kulli ay si fiican qalbi wanaagsan ay ugu soo dhaweeyeen oo aan garab ka haysto oo weliba ugu yaraan ilaa 500 oo tigid ay qaateen madaxda waddanka waxaan aad ugu faraxsanahay sida sharafta leh quruxda badan leh ee Muqdisho lagu soo dhaweeyay tigidkaygu waa 2 nooc midna waa 30 waa dadka VIP oo dadka madaxda already waa sold out midka kale waa $15 baan ka dhigay dad baa weyn maxaa 20 uga dhigay maya kama dhigay dhalinyarada yararka ah waxa weeye waa 15 dadka tiktokerada ah dadka miidiyaha fanaaniinta iyo waxay wataan habeenkaas aniga ayaa casuumay anigu lacag ma raadinayo waxaan jecelahay dadka ayaan jecelahay shacbiyada ayaan jecelahay reer Muqdisho iyo nawaaxigeeda waxaan leeyahay habeenkaas hareerahayga aan idinka arko waan idin jecelahay aad iyo aad ayaan u mahadsantiin fanaaniintayda caawa oo golaha ku sugan gaar ahaan Cabdullaahi Boqol uu ugu weyn yahay ugu yar tahay ugu yar yahay maxaan ilaa iska sheegay waxaan kaleetoon aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa oo caawa gacantayda midig aan si saa'id ugu arkay walaalkay Saadaq Cabdi dhigay DJ-ga kan DJ Xamaadi dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsantiin Saadaq taariikhda ku qoraysan Saadaq Cabdi dhigay odayga TikTok waa taqaanaa aad baa idin jecel wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kaamirastayaasha caawa hortaagan aad iyo aad ayaad u mahadsantiin walaal waxaa idin dhahan ma lahan farxad ayaan halkaan caawinta aan la ciirayaa waa mahadsantiin rankiya caashaqeeni